maxkamadda sare ee dalka oo maanta si rasmi ah u bilowday dhageysiga kiisas dacwadeed gaaraya ilaa 9 oo ka dhan natiijadii doorashada ee 15kii bishan Agoosto lagu dhawaaqay ayaa waxa ay soo saartay go'aan la xiriira in guddiga doorashooyinka looga baahan yahay inay u ogolaadaan xarumihii codtirinta iyo waliba halkii lagu keedinayay codadka ee saafarka in loo ogolaado Raila Odinga iyo xulafadiisa isla markaana goobaha qaar ee codadka lagu keedinayay ee ka baxsan xarunta Bomas sidoo kale loo ogolaado si ay u ilaashadaan codadkooda isla markaana ay u ogaadaan tirada rasmiga ah ee codadka ay heleen. Arrintan ayaa waxaa si toos ah ugu dhawaaqday Martha Koome oo ah madaxa cadaaladda dalka waxaana ay sheegtay Mrs Koome in xilligan muhiimad gaar ah ay leedahay in Raila Omolo Odinga la qanciyo. meelaha kale ee Raila Omolo Odinga iyo xisbigiisa Azimio la Umoja One Kenya loo ogolaaday in codadka ay dib u eegaan ayaa waxaa ka mid ah Nandi Hills, Sinandeti Primary School oo Nandi ku yaala, Belgod, Kipsoser, Chepkutum iyo dhammaan iskuulada hoose dhexe ee ku yaala ismaamulka Kericho. meelaha kale ee sida gaar ahaaneed ay u booqan doonaan dadka matalaya Raila Omolo Odinga si codadka dib loogu eego ayaa waxaa ka mid ah Jomvi, Mikindani iyo wasaaradda biyaha. xarumaha qaar ay leedahay oo ku yaala ismaamulka Mombasa oo dadka codadkoodu ay ka dhiibteen sida Mvita, Majengo iyo dugsiga hoose dhexe ee Mavita oo ku yaala ismaamulka Mombasa. waxaana sidoo kale la tilmaamay in xilligan muhiimad gaar ay u leedahay Raila Omolo Odinga qancintiisa inta dhageysiga maxkamadda ay socoto in xog dhameystiran uu helo.